tiro odayaal ah oo kamid ah ergadii dooratay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan aaday dhaqdhaqaaqa al-shabaab ayaa maanta laamaha amniga waxa ay ku xireen xabsi ku yaala Beledweyne in xabsiga loo taxaabo ergada la macaamishay al-shabaab ee dib Beledweyne ugu soo laabtay ayaa ka soo baxday kadib kulan Beledweyne ku dhaxmaray saraakiisha laamaha amniga ee Beledweyne iyo madaxda ugu sareysa maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad waxaana lagu amray dhammaan ergada inay soo xaroodaan ergadii dhawaan u tagtay dhaqdhaqaaqa al-shabaab si loo baaro loona waafajiyo sharciga xeerlaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Dhamme Maxamed Cabdulqaadir Maxamed oo warbaahinta u aqriyay qodobadii kulanka ka soo baxay ee la isku afgartay ayaa yiri ergadii u tagtay marka hore dooratay xildhibaanada dawliga ah oo dawladnimada amaanta haysan qayb muhiim ka ah gadaalna haddana loogu yeeray qaarna hore loo dilay wixii bad qabina gadaal haddana shabaab ay ugu yeereen su'aasha meesha taala ayaa ah nin nabadoon ah oo dawladda aan haysan qayb ka ah dhismihiisa inuu shabaab u tago la macaamilo la soo balamo waajibaad shaqana ay soo kala qaataan taa iyada ayaa wax nagu noqotay arrin cajiib ah okay waxaan soo saarnaa awaamir oo aan ku socodsiinayno dhammaan laamaha amniga in ay soo xareeyaan lana baaro maxkamaddana la horkeeno dhammaan nin walba oo ka mid ah ergadaas shabaab u tagay la soo macaamilay amarkaas wuxuu quseeyay taliska nabad sugidda nisa kan qaybta saldhigga Beledweyne iyo militarigaba dhammaan ergadii Hirshabeelle ee deegaankooda Hirshabeelle ahay baxay u tagay shabaab la soo macaamilay waxyaalaha cajiibka waxa ka mid ah in aan hayno codadkii ay shabaab kula soo balamayeen kulli waajibaadka shaqo isku direen iyaka yaqaan iyaka oranayo wixii aad nugula balanteen waa fulnina qodobkaas ayuu ahay qodob muhiim ah in ergadii la soo xareeyo si sharciga loo marsiyo shalay amarka soo baxay isla shalay waxa la soo qabtay dad badan oo ergadii ka mid ah maanta way socotaa biri way soconaysaa qaarkood baadiyaha jiraan waa laga wacay nin walba meeshaas tagay qolana haddayba ku maqanayeen weli ay jiraan kuwaasna hadday imaadaan iyakana sidaas oo kale ayay u mari doonaan waddada kuwaan la marsiiya ayaan la marsiin doonaa kuwaasna sidaas daraaddeed qodobkaas ayuu ah amarkaas ah in ergadaas la keeno baarisna lagu sameeyo maxkamaddana la horkeeno xafiiska xeerlaanta la horkeeno si sharciga loo waafajiyo xeerlaaliyaha ayaa docda kale waxa uu digniin adag u diray ganacsatada la macaamisha al-shabaab ergada kaliya ma aha ganacsato la macaamisho shabaab ayaa jira oo magaaladan Beledweyne joogto kulana macaamisho waxyaalo ka baxsan xindaabkooda shaqada xitaa iska dhaaf wax kale waxa jira qolo magaaladana dukaamo iyo shirkado ugu furan oo lacagaha shabaab inay u aruuriyaan baadiyaha ay joogaan ugu geeyo waxa leenahay haddii hadda ka hor aaminsanaayeen inaysan dembi ahayn hadda ayaan u sheeganaa inay dembi tahay iyakana waxaan rabnaa wax la amray in la soo xiro ayay kow ka yihiin ganacsatadaas waxa kaloo la amray cid walba oo shabaab la macaamisho magaaladan joogto ama inay shabaab dhulkii ku nool yihiin ay aado sidii shabaab jaqda ugu jiray ay ugu jiraan ama inay xabsiyada dawliga ah ay ku jiraan wax ka dhaxay ma laha amarkan cusub ee ka soo baxay saraakiisha laamaha amniga Beledweyne iyo maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybteeda 27aad ayaa ku soo beegmaya xilli toddobaadyo yar ka hor dhaqdhaqaaqa hubeysan ee al-shabaab ay u yeereen ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee haatan waqtigiisa uu sii dhamaanayo isla markaana qaarkood Beledweyne ay dib ugu soo laabteen Maxamed Ibraahim Siyaad Kalson TV Beledweyne